munaasabadan loogu feestaynayay 60 sano guurada ka soo wareegatay xorriyadda iyo midowgii dalkeena ee 1 Luulyo waxaa ka soo qayb galay ururada haweenka dhalinyarada malaaqyada saraakiisha ciidamada bahda fanaaniinta maamulka gobolka kan degmada iyo boqolaal dadweyne oo ka yimid xaafadaha magaalada xudur looma kala harin xuska iyo isu marxabeynta munaasabada qiimaha badan ee 1 Luulyo qaybihii kala duwanaa bulshada ee munaasabada ka qayb galay ayaa si qiiro leh uga hadlay muhiimadda iyo qiimaha xorriyadda ay u leedahay ummadda Soomaaliyeed 60 sano guuradan maalinta xorriyadda iyo midnimada ayaa waxaa iyagana bulshada reer Bakool la wadaagay muhiimadda ay leedahay wadaniyadda iyo inay dhiigooda u xuraan midnimada iyo jiritaankooda gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin iyo gudoomiyaha gobolka Bakool Maxamed Cabdi Tool aduuna dhiigan horna ogaada looga muqrow doona way la fadayeen dhiig horna أنا نفتورنا اللي باجي بنقاعد نقاعدو دكتور كبنقاعد دكتور تفريين لما واي ما اللي باجي أنا نعيد ما دي دولان باين علوكن كدولان أنا نكون اللي باجي أنا نقرب سنون اللي باجي أنا ميلان قالنا اللي باجي هذي مشاعر كرير ودورني ولا نقول لهم مات ولا نقول لهم بتاع حضور حضور ويبل نقول ذي gobolka Bakool baan gorday dad wadaniga dalshooreeyo adogu korsado in gorday ma hambalyeeyay dhamaan reer Bakool dhamaan Soomaaliya oo dhan hambalyeeyay oo aan hambalyeeyo feestadan oo aad geed munaasabada 60 sano ku wareegdi ilaahay umradeena si tii markii bilowdaas in umrada ilaahay si tanaadil roogna ilaahay si waliba ma rajaynaano kala in deed insha Allah صدق سنة ما يداري دواتنا نيل صوت صدق كل سنة ما يدفعه مدن كل سنة واي أرد يعني إنه لهانا دفعه إنه واي أرد صدق سنة إنه لهانا إنه والله قبض هرمار كدال كل خشاري هذا كل يسقط ودن كنا نسياسنا ساسلين باين ugu dambeyn waxaa la saaray calanka jawigana sidan ayuu isu bedelay